السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا دودوكتي هنا أبا سيدا نو داوانيسا واهي فلق جنال ما أنت وحا لسكو هستا حسن طوب نيكي لليه برصوماليي ما أدين كا دولمن بس حسن طوب أيا دولمن wuxuu yiri asaga ahaantiis wuxuu yiri aniga ma dulminiye dadka idaawanaya dulman Soomaaliya aqli ma diyaalataan markasteeto markii aniga ku maaweelinayo dagaal aan jirin iyo waxba aan jirin markasto waxaan leeyahay waaw kan waay waa hadartan waxa ay tusayaa muuqaal codka maxaa lahaa oo xasan muuqaal codka oo sidoo lugeel ah iyo dayax waxa dhahayaan fiyuskan macnaha waa inaan raadinaa mid ka sii shidan waa inaan fiyus ku helnaa dhahayaan dagaalkeen dadka macnaha dadku waxay dadku ku maaweelinayaan waa aragteen waxay ku maaweelinayaan maanta dhan hadartan waxaa loo maleeyaa inay isdagaashan yihiin dugaal media iyo durdur media inay isdagaashan yihiin loo maleeyaa mana isdagaashana waa kuwan ay ku isla hadlayaan waxaan lahayn dayaxow hadal ka jiro malaha waxaas oo dhan waa wax beene taada kala xasanto wuxuu yiri aniga ma dulmaniye dadka idaawanaya dulman maantane asaga isdhahay maantane wuxuu raadinayaa been iyo wax inuu fiirsado darteed uu fiisu raadinayaa taada kala xasanto waxa waaye dadkan in isku diro markasteetan horta waxaa lahayn hilibka labadii hilib isleh hadda maanta ani hilibkayga jirkayga sidii liiga goobay adagta sax laakiin asaga wuxuu isku dayay aniga walaashay inuu isku kaandiro balse iskuma kaandiri karo waayo sababtoo hilib isla dhashay lama kala gooy karo horta laba qof oo saaxiib caadi waa la isku diri karaa laakiinse hilibka sida la iskugu diro way adagtaa laba qof isla dhalatay ani iyo hibo falaq horta ruuxaanta waa walaashay laakiin waxaa tahay ninkan ay dhex shaqeeyay ani ayada ramadaanka marka ani hibo aan joognay maxaa la meeshaada aan ka shaqeyn jirnay waxaa damacday inaa ani hibo isku keen jirto balse way kuu suurtageli weyse labada walaalo war si kasta hadday isku dagaalaan ma kala go-ayaan qofku cad kuugu yaala saa ku kala go-daan way adag tahay ma fahanti yaa maanta adii lii waa shoorla ma kala go-aysiin waa may aniga hibana saas oo kalaanahay tusaale markino waxaa la dabaalka usha agtiisa ku dhufo hadduu garan waayana asaga ku dhufo war horta aniga waa yaabay adiga ma waxaas ku malaysaa dadka dhan inaa ka aqli badan tahay dadka ma aqli badan dadkani waa aniga waxa igu kaliftay inaa maanta aruntaada dhan meeshaan ka cadeey xasto aniga horta wax naga dhaxay malahan laakiin runtii inaa meeshaan ka cadeeyo sidoo lugeela ku soo haray dayax iyo maxaa lahaa durdur media iyo maxaa la dayash waxa ka dhaxeeyo waa wax beeno mala awaal waxay rabaan bulshada inay maxaa la fiyus karaadiyaan bas leeyahay rabaan maalin kasta dagaalka waxay dhahayaan hadarta muuqaalka ay tusay waxay dhaheen waa inaan anaga maxaa la maanta dagaalka aan muujinay dagaalka si xasaasiyad badan waa inaan muujinaa maanta kula sida ay fiyus badan u helno fiyuska helisa dad wanaagsan iska dhigaan dad isdagaalsan iska dhigayaan oo run isku dagaalsan laakiin isma dagaalsan dadka fiirsanaya taageeraha u ay waxay rabaan sida lacagta ugu gurtaan bis ay fiyus ku helaan ee like iyo comment share ku helaan dadka meesha keentay oo aan qiimaha lahayn u yeel qiimaha anaga dadka meesha keentay kaleeto hastob dadka meesha keentay horta aniga durdurtii hor waa ku jiray laakiin hada hawada raacday
يا الحمد لله شكر ما أنت هودي قدر سنتي واحد إيجا قال ما لها يعني لكن هرت ول أنا هرت دردر وعكس لحم مقضي لكن سوي لي عليه حسن طب كشين أوليه وليه ماركين وليه أنا حسن طب كشين أوليه حتى ما باركيني أنا كاب حقي أنا من مركز قار حقي أنا بكتب تاو إلى وحالة هاي محاي هيدا الطريق حق ضدك وحالة حق هدي مدح لوغا فريستو مجهو كدقدقاقا ما فهمتي يا حسن طب marka waxaan leeyahay social media wajigaagu wuu ka batay wajigaagu waa laga nacay meel walbeetana adiga ayaa meel kasta taceebtaada taalo waxaan ku leeyahay qof wanaagsan iska dhig waan ku waaninayaa qof wanaagsan oo sharaf iyo nidaam leh iska dhig markaas YouTube soo fadhiistaa ya maanta waxa igu kaliftay anoo hodan oo iska aamusnaa jiray inaa maanta adigu ku firdi baxo sababtoo ciilkaaga meel kasta ciilkaaga way ka furantii la kala dhiirabaa ninka xastab leeyahay anigu walaashaya amlaahay waan ku waaninayaa waxa ku leeyahay dhaqankan aawad iska bedel war hadeertaan dadkii horta hore qof bil aadan oo fiican dadka uu soo caan bixiyay bal macay lahaayeen ama dadkii oo la soo shaqeey jiray ee maanta wax isla soo mareen macay lahaayeen qof fiican intuu wanaagsan yahay qofka hadduu wanaagsan yahay lama caynaayo illa amaana ma ahani qofku xumaantiisa markii la arko la caayaa inta kale ma la caynaayo waay sababtoo ah waxay dadka dhan kugu caynayaan waa wax laga arkaadi waxa ku leeyahay nidaam isku yaal bartikool yeelo dhaqan fiican oo wanaagsan maaragtay bulshada soo dhaxgal bulshada dhaqan wanaagsan maaragtay la soo galaa asxaabay horta waa buyaabanahe ninka xastab leeyahay ma wuxuu dadka dhan waa ka aqli badan tahay Soomaalida war aqli hadaa maanta adiga hadaa isku baleys inaad dadka dhan ka aqli badan tahay kontonley ka aqli badan abu xasaas YouTube leena weeyeen kontonley ka aqli badan ya amaanta soo wada bixin hadaa isdheeyay dadka dhan waa ka aqli badan tahay saana tahay dadka kale waxaan idhahayaani dadkan aad mashquulinaysaan oo dagaalka beenta aad u muujinaysiin hadaa run sheegaysiin run isku dagaalano beenta maxaa sheegaysiin marka run isku digaashiin afiyus run helaysiin laakiin inta beenta hadba isku soo caatimaysiin wax ay helaysiin malahan sidoo lugeel aan wax walba ka fashiliyay wax walba ninkaas afkiisa ku fashilay inuu waa bari dhex wareegay in shalay waa sida hor loogu sheegay waa bari dhex wareegay codkiisana waa maqasheen sida nin sheegay asagaana nin fashilay wuuna ku fashilay waxaagi dhan uu fashilay ina dagaalka iyo wixii aawad dhan asaga fashilay sidoo lugeel aan fashilay runahanti xastoob aniga iyo walaashay horta hore isma kendir kartid aniga oo xaafada hooyaday jiro waxa ii soo dirtay nidaamiye anuu soo wacay hodanay qoftaan hibil lahaa saamwaa ku dhaco waa wax ma shaqaysanayso wax ma qabsanayso ee ma xasmeynayna way waxa rabtaa sida anigu soo jiidatiin anigana maxaa kuugu jawaabay marka imaado wax walba wada xalinayna ilaa hada afkayga markaas kama haymo oo maxaa la wax oo aan dhahay oo kula shaqeynaha maanta ma dhihin markaas nidaamiyeen soonki waa ogtiin wuxuu ka tirsanay toonka oo durdur bas markaas ayaa waxa dhahay waa wada xalinayna ayaa dhahay waan imaaday xaafada markaa imaaday waxaan arkay hibo dhaheeso hodanay anoo shaqadaadii ku raadinay shaqo kaleeto shaqadeedii booskaaga ku bedelatay dhawarkaan iga toogateen adiga xasan toobiyo ali ugu dhahay anigana waa xanaaqay xastobna waa wax samaacadaan u furay waxaa dhahay xasan toob aniga ku dhahay waa ku shaqeynaa ma afkeyga ka maqasho aniga hodan ahaani markaas wuxuu dhahay maya waxaa dhahay sida ugu fakartay ina ani hiba isku kendirta labadan macnaha ayadan dhawr ka toogata aan dhawarkiiga toogata labadan naga dhex faa'iideysatay ma dhacays laakiinse ani maxaa ku dhahay aniga hibo meelaysa ka muuqanayna anigana ma ka muuqanaayo hibo meesha ka muuqatana waa ka muuqanaa
hibo meesha negative dhahay anigana negative maxaa ku dhahay marka asxaabaysaa laba socotaan oo xasan toob waxaan leeyahay nin fiican isku soo dhikarti isku soo yeel kontoleyaasha ayaa ka aqli badin asxaabay meel walba joogtaan halkan nagala socoteen waa tiin hibo falaq sidaas iyo nabadgelyo